wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Aadan Ismaaciil Axmed Keys oo weheliyo safiirka Somaliland fadhiya dalka Ingiriiska Ali Aadan Cawaale ayaa socdaal kaga soo noqday safar shaqo ugu maqnaayeen halka Ingiriiska wasiirku markuu soo degay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport wuxuu qalka nasashada ugu warramay warbaahinta uu ka warramay ahmiyadda uu leeyahay aqoonsiga ay siiyeen golaha deegaanka degmada Tower Hamlets ay ku aqoonsadeen madax bannaanida Somaliland wasiirku wuxuu tilmaamay inay tahay tallaabo xagga horumarka ah u qaaday Somaliland dhinaca ictiraaf raadinta waxa runtii farxadno aniyo safiirka Somaliland u fadhiya UK ama dalka Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriiska iyo anigaba inaan dalkayga ku soo nabad noqono oo waxaanu soo ku maqnay safar shaqo oo u tagnay magaalada London markii hore waxay raacay wasiirka macdanta Xuseen Cabdi Ducaale oo waxaanu ka qayb galaynay xafladii lagu aqoonsanayay Somaliland ay ku aqoonsanayeen golaha deegaanka baaraha la yiraahdo ama xaafadda la yiraahdo Tower Hamlets markii dambena waxaanu ka qayb galnay jaaliyadii Somaliland ee dalkaasi ayaanu aragnay runtiina waxaan maanta noo farxada inaanu shahaadooyinkii aqoonsiga iyo wixii kale cadeymaha aanu haysanay Tower Hamlets inay noo suurto gashanay safiirkaba inaanu ka soo qaadno ay daraatina soo guddoonsiiyeen markaasaan kule wixii warbixinay waa faafahinaba aanu ka bixin doonaa waxay ugu wehelinayeen imka safiirka isaguna safar u yimi seminaarka ama aqoon isweydaarsiga iyo shirka ka dhici doona Sabtida bilaami doona 12 oo safiiradii wixii hore u joogay wixii maqnaaba la isku yeeray oo 14 safiir ah oo aanu markaas shirisna 5 cisho oo nooga qabsoomi doona magaaladan Hargeysa Hotel Mansour kaasoo dib loogu eegi doono siyaasadda arrimaha dibadda iyo istaraatiijiyada 2016 ee aqoonsi raadiska geesta kale safiirka Somaliland fadhiya dalka Ingiriiska Ali Aadan Cawaale ayaa ka warramay ahmiyadda uu leeyahay xafiiska Somaliland kula dalka Ingiriiska iyo kaalinta uu ku lahaa aqoonsi raadinta golaha deegaanka safarkayga aniga aan wasiirka ku wehelinayeen halkan ku imi wuxuu la xiriiraa yeedmada oo wasaaraddu ay noo yeedhay iyadoo kulan ballaaran oo safiirada Somaliland ee dibadda jooga isugu imanayaan haddii alla yidhaa maalinta Sabtida uu ka bilaabmi doono halkan Hargeysa taasoo sida wasiirku sheegay lagu lafaguri doono siyaasadda arrimaha dibadda iyo halkii looga sii dhaqaaqi lahaa waxqabadka ay wasaaradda arrimaha dibadda ku talaabsatay waxaanu rajaynaynaa insha Allah in maan ragwa madaxyaafkoodii talo wanaagsan iyo qorshe wanaagsan ka soo bixi doono shirka insha Allah dhinaca kale safiirka Somaliland fadhiya dalka Ingiriiska oo warbaahintu wax ka weydiisay doorka uu ku lahaa xafiiska Somaliland dalka Ingiriisku kaalintii aqoonsiga uu siiyay golaha deegaanka degmada Tower Hamlets anagu waxaanu nahay xafiiskii qaranka oo safaaradii baanu nahay halka joogtay walaalaheena reer Somaliland ee halka ku nooli ay hoggaanka u ahayd inanteennii qaaliga ahayd xildhibaanada ahayd Aamina Cali xiriir wanaagsan bay nala soo sameeyeen iyada tiimkeedu markii ay hawshan bilaabayeen waanu la soconay wixii tala ah wixii tilmaana wixii ay nooga baahdaana waanu kala shaqaynaynay marka xiriirkaygu uu jiray waxaase libta aanu siinayna dadkii hawsha suurageliyay ka shaqeeyay habeen iyo maalin ka shaqeynay ee aanu anaguna daha dabadiisa kala shaqeynay